السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa laga yaabaa maalin maalmaha kamid ah adigoo maalintaada caadiga isaga jira inaad isweydiiso ayna kana Allah qabla kulli shay. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso ilaahay umuurahan hadda dhacayo iyo shay walba oo hadda dhacayo adduunkan iyo samadan iyo wax walba iyo malaa'igta iyo bini aadanka ka hor ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaguu joogay. waxaana laga yaabaa inaad isweydiiso waxa ugu horeeyay oo ilaahay abuuray maxay ahayd. yacni waxaana laga yaabaa inaad isweydiiso adduunkani inta yani adduunka iyo wax walba la abuurin ilaahay xaguu jiray. ilaahay ka horne wax maa jiray kadibne yani wax ugu horeey ilaahay abuuray maxaa waay. waxaa laga yaaba yani maalin maalmaha kamid a adigoo caadigaaga isaga joogo inaad su-aalahaas isweydiiso oo aas dhaadid ayna kana Allah qabla kulli shay. balse waxaa laga yaaba markay su-aashaas kugu soo dhacday inaadan sii tixraacin oo aadan kasii fikirin balse aa meesheeda uga hartay adigoo ka cabsanaya inay maskaxdaada ama qalbigaaga uu qaladaad ku geliyo taasoo dembi ku geli kartid. waxaa laga yaaba maalin maalmaha kamid a adigoo isku socday inaad isweydiisay inaad cirka fiirisaa dhahdid waa maxay samadan, waa maxay dhulkan, waa maxay makhluuqan, adiga maxaa tahay, yaa ku abuuray. ilaahay subxaanahu wa tacaala shayada ugu horey oo abuuray maxay ahayd. ilaahay yani xaguu ilaahay yani xaguu hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu joogaa. yani su-aalahaas inay kuusoo dhacdhacina laga yaaba balse su-aalahaas aad isweydiisay ama mawduucyadaas jawaabtooda waxaan kugu hayaa muuqaalkan ee ila dhameyso ilaa iyo dhamaadkana ila gaara. okay, haddaba mawduuceena intaanan gelin ka hor, bisha maanta waa ramadaan, waa kow ramadaan ayaa maanta kow ah. ramadaan kowgiisa ilaa iyo soddonkiisane ilaa wixii ka dambeeyane waxaan ka sheekeyn doonaa wax walba oo diinta islaamka ku saabsan ee ku anfacayo oo aadan aqoon u lahayn iyo su-aal walbo kaa dhex guuxaysa jawaabteeda inta ayaa ka heli doontaa oo anagaa jawaabteeda ku siin doono. adigana waxaan kaa codsanayaa keliya inaad janaalkeyga youtube-ka aad soo booqato oo aad subscribe gareyso. xili walbana maalin walbane waxaan soo dhigi doonaa barnaamij ku anfacayo yani diintaada ku anfacayo wax walbo diinta ku saabsan oo aadan aqoon u lahayn ayaa kugu faa'iideyn doonaa. dhankaas iyo commentigane nagula wadaag wax aadan aqoonin oo aa jeclaa lahayd inaad wax ka ogaato anagaa ku faa'iideyn doono. okay, ugu horeyn a barnaamijkeena galno. ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis ayuu jiray, huwa alawal waalaakhir. ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis ayuu joogay, keligiis ayuuna jiray. hareerihiisane wax joogay ma lahan oo keligiis ayuu noolaa uu jiray. ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis ayuu jiray oo maa fawqahu hawaa wamaa taxtahu hawaa. ma fahamte, geesihiisa iyo dhinaciisa waxay ahayd meel banaan oo hawa ah. wabacdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa awood badane. ilaahay subxaanahu wa tacaala ashyaada ugu horeey oo abuuray haddaa ku hormarno yacni keligiis ayuu jiray soo maha. waxa ugu horeeyey oo ilaahay abuuray waxaa waaye carshigiisa arraxmaanka. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ugu horeeyey oo abuuray waa carshigiisa. wa kaana carshahu fawqa almaa. carshigiisa ayuu abuuray. carshigiisa markii uu abuuray kadibna wuxuu abuuray biyo. biyaha wuxuu ku jiraa shayaasha ugu horeeyey ee la abuuray. carshigiisa marka wa kaana carshahu fawqa almaa, carshigiisa koreeyay kadib biyaha ka hooseeya. waxaa hadda kuu sheegay labada shay oo abuuray. horta midaa ilaaway. ilaahi subxaanahu wa tacaala 4 shay ayuu wuxuu ku abuuray gacantiisa kariimka ah, biyadihi lkariim. ilaahi subxaanahu wa tacaala 4 shay ayuu asiga gacantiisa ku abuuray. wixii kasoo harayna waxay ahayd kun fayakun. 4taas shay wixii kasoo haray ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay kun wayna naqanayeen, kun fayakun. okay, 4taas shay oo ilaahay gacantiisa ku abuuray. shayga ugu horeysa iyo shayga labaad waa sheegnay. kan ugu horeeya wuxuu ahaa carshigiisa, carshiga raxmaanka. ilaahi subxaanahu wa tacaala carshigiisa waa meesha uu joogo uu ku nool yahay, waa meesha uu ilaahi subxaanahu wa tacaala joogo oo kursigiisa ayaa u yaalo.
okay carshiga shayga labaad oo abuurayna waa idin sheegay waxay ahayd oo ilaahay abuuray waxay ahayd biyaha ma okay shayga saddexaad oo ilaahay subxaanahu watacaala abuuray haddii aa idin sheego waxaa waaye qalamka alqalam shayga saddexaad oo ilaahay subxaanahu watacaala abuuray waa qalimka wabacdeen markuu qalinka abuuray qalinka ayuu wuxuu ku leeyahay octub qalinka marka muxuu leeyahay wamaada aktub qalinka marka ilaahi subxaanahu watacaala qalinka ayuu wuxuu leeyahay waxaad qortaa qor ayuu ku leeyahay qalinkana wuxuu leeyahay maxaan qoraa kadib ilaahi wuxuu leeyahay waxaad qortaa wax walba oo dhici doono xilligan hadda la joogo ilaa iyo yowma alqiyaama qadar walboo dhici doono wax walboo dhici doono shay walboo dhici doono ayaa qor la dhaha qalinka xilligan la joogo ilaa yowma alqiyaama wax walboo dhici doono kadib ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu abuuray lowxalmaxfuud lowxalmaxfuudka waxaa lagu sheegay weynankiisa inuu ka weyn yahay samada ilaa iyo dhulka yacni dhirirkiisa waxay ka weyn tahay 7 samo ilaa iyo 7 dhul balaciisane maa bayna almashriq walmaqrib siduu u balaaran yahay lowxalmaxfuudka waaye lowxalmaxfuudka waa looxa lagu qoray qadar walba oo dhici doono waqtigaas ilaa iyo hadda yacni qadar walba waxaa ka wadaa malaa'igta la abuuri doono bini aadanka la abuuri doono shay walba oo dhacaayo hadda inaa idin hor joogo oo cameradan aa idinkala hadlaayo oo yacni idinkaga sheekeynayo qisadan muhiimka ah wax walba oo dhici doono qalinkaas ayaa lagu qoray waxaa laga yaabaa inaa isweydisid carshiga ilaahay yacni weynankiisa ilaa intuu la egyahay okay tusaale aad iyo aad wanaagsan aan ku siinaa horta akbar makhluuqaat allah hiya alcarsh makhluuqaadka oo ilaahay subxaanahu watacaala abuuray waxa ugu weyn waa carshiga ilaahay waa ilaahay carshigiisa ma fahanti carshiga ilaahay waaye makhluuqaadka ugu weyn oo ilaahay abuuray kadib waxaa laga yaaba inaad isweydisid ilaahay subxaanahu watacaala kursigiisa maxaa lagu miisaalay kursiga ilaahay maxaa lahay wasica kursiyuhu samaawaati waalardi kursigiisu wuxuu ka weyn yahay samaawaadka iyo ardada oo laisku daray oo idin waxaa ka weyn kursigiisa marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid kursigiisa yacni samaawaadka iyo ardada oo ka weyn yahay dhahday maxaa lagu misaalay maxaana lagu misaali karaa okay misaal fiican aan ku sheegay faraantiga waa taqaanaa maano faraantiga caadiga farta la gashto ama siwaaga gacanta la gashto oo yacni caadiga jijinta caadiga dadka gacanta gashtaan jijintaas waxaa kasoo qaadaa 7 samo iyo 7 dhul kasoo qaad jijintaasaa ujeedid ama faraantigaas inta badan laakiinse waxaa lagu misaalaa yani jijintaasaa lagu misaalaa qaarna faraantiga ku misaalaan qaarna jijinta laakiin jijintaba kasoo qaad jijinta caadiga oo calamada yani caalamada soomaaliya iyo waxaas aa u isticmaashaan oo gacanta la gashto jijintaas waxaa kasoo qaadaa 7 dhul iyo 7 samo aa kasoo qaadaysaa jijintaasaa kasoo qaadaysaa waa soo qaadaysaa okay kursiga ilaahayna waxaa kasoo qaadaa saxaraha bacaadka oo arkay saxaraha libiya ee saas u weyn aa ujeedin saxarahaas liibiyana waxaa kasoo qaadaa inuu yahay kursiga ilaahay jijintaas inaad qaado waxaa ku turtaa saxaraha okay jijintaas inaad qaado waxaa ku turtaa saxaraha jijinta saxaraha saas u weyn waxaa lagu misaalay inuu yahay kursiga ilaahay jijintana ee tahay 7 samo iyo 7 dhul misaalkaas ma ku dhacay takhayal toogtaan haddana waxaa la dhahay 7 samo iyo 7 dhul wallaa kursiga ilaahay yacni kursiga ilaahay oo isku soo dardar haddii loo bandhigo carshiga ilaahay carshiga siduu u weyn yahay 7 samo iyo 7 dhul iyo kursiga ilaahay waxay noqonayaan jijintaas carshiga ilaahayna toogtaan waxay noqonaysaa saxaraha yani waa tusaalaha ugu muhiimsan yani takhayal yani okay hadda waxaa ka hadleynaa okay tan ugu daranaa waxay tahay hadda waxaa ka hadleynaa 7 dhul 7 samo carshiga iyo kursiga ma fahantay ka hadleynaa okay takhayal ka fikir ilaahay subxaanahu watacaala laftigiisa weynankiisa maxaa umaleynaysaa ilahi subxaanahu watacaala weynankiisa ya maxaa umaleynaysaa macnaha xalqadan maanta meeshaan ayay idin joogeysaa insha allah
qaybtan maanta inta ay inoo joogeysaa, meeshaan ayaana kasii wadi doonaa xalqadeena xigta ee soo socota. xalqadeena xigtana waxay inoogu bilaabanaysaa abuurista malaa'igta iyo yacni makhluuqaadka kale. yacni barnaamijkeenana waa inuu soconayaa maanta sidoo inoogu bilaawday waaye, waana wadi doonaa.